بسم الله الرحمن الرحيم. sidee loo ixtiraamaa ninkaaga in qofka kale uu ixtiraamo waa lagama maarmaan nolosha guurka ah, laakiin khubarada guurka ku takhasusa waxay xaqiijiyeen in ragga ixtiraamka sida neefta aan neefsano oo kale ay ugu baahan yihiin. nabigeena Allahumma salli wa sallam alayhi wuxuu aad ugu booriyay ixtiraamka haweenka, gaar ahaan markuu yiri haddii aan qof fari lahaa inuu qof kale u sujuudo, waxaan fari lahaa xaaska ama dumarka inay ninkoodii u sujuudaan. nabigeena Allahumma salli wa sallam alayhi hadafkiisa ma ahayn inuu dumarka liido xadiidkan, laakiin wuxuu ogaa natiijada fiican ee ka dhalan doonto. maxaa yeelay ninka rag ah hadduu ixtiraamka helo xaaskiisa, asagana wuxuu ugu bedelaa jacayl bilaa shuruud ah. maxaa yeelay ninka ixtiraamka ayuu u turjuntaa ama u turjumaa inay xaaskiisa jeceshahay, asagana wuxuu ugu bedelayaa jacayl bilaa shuruud ah. hadduu ilaah yiraahdo siyaabo badan ayaa ninkaada u ixtiraami kartaa. macnaa runtii hadal yar oo fiican ah u tiraahdo ayaa ku filan. sida waxaa jirtay nin tagsiila ah oo xaaskiisa ku tiri bedelkaaga lama helaayay, baabuurka tartiib u wad. ninkii tagsiilaha wuxuu yiri 3 sano hadalkaas kaliya ayaa ikaafiyay oo dhiirigelinaysay oo shaqadiisu si fiican u gutay, macaamiishiisa xataa ay siinayeen review fiican, xataa yani abkiisa uu 5 نجوم oo noqday 5 star yani ala kalimadaas fiican dartiis. marka nimankiina dhiirigeliya oo hadal fiican dhaha, macnaa khiyamkooda iyo kor u qaada hadduu ilaahay yiraahdo. sidoo kale markay dhibaato jirto inaad garab istaagto, markii deyn iyo wax la isku leeyahay, gaar ahaan waqtiyadan hadda quarantiinka lagu jiro, shaqadiyo yaraatay, ayuuta lagu jiraa, deyna lagu jiraa. marka ha uu sii darin, marka isgarab istaaga, isla xalliya arrinka hadduu ilaahay yiraahdo. ninkana weligiis ma iloobayo abaalkaas u gashay hadduu ilaahay yiraahdo. sidoo kale marka aad dad kale isdhex joogtiin, ninkaaga wax xun ha ka sheegin, badan wax fiican ka sheeg mar walbo. caruurta agtooda markaad joogtid yani hoos ha u dhigin, maxaa yeelay haddii caruurta ay arkaan adoo hoos u dhigaayo, ayagana aabba hoos u dhigayaan. marka iska ilaaliya insha allahu tacaala. gurigiina ixtiraamka iyo jacaylka mar walba shidaal uga dhiga hadduu ilaah yiraahdo. waa walaalkiin Baazi Busuri, TV ga caalamiga ah Universal TV. barakallahu fiikum.